بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo taariikhdu ahay 27 bisha 7 2019 waxa hall number 3 bila Hargeysa ku galay doorasho ay ku dooranayeen hogaankooda ku meel gaarka ah guddiga ku meel gaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka waxa ka soo qayb galay 12 xubnood oo kamid ah 15 xubnood waxay iska dhex doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xog haye waxa ku tartamay booska gudoomiyenimada ah ee hogaanka guddiga mudane xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji iyo sidoo kale xildhibaan Iimaan Cabdullaahi Cali halkaas waxa ku guuleystay markii ay cod qarsoodiga ku doorteen xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji oo helay 9 cod iyo sidoo kale xildhibaan Iimaan Cabdullaahi Cali oo helay 3 cod saas awgeed waxa doorashadaas ku guuleystay xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay xilkaas u fududeeyo waxa sidoo kale gudoomiye ku xigeen loo doortay xildhibaan Maxamed Cumar Caymoy oo wadar ogol ahaan loo doortay oo dhammaan ay guddigu isku wada raaceen sidoo kale xog haye waxa loo doortay xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed Cabdi Taw isaguna wadar ogol buu ahaa codana kulama tartamin sidaas gacantaag loogu wada codeeyay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddigu waxaan rajaynaynaa muddada gaaban ee la siiyay 60 maalmood ah inay ku soo dhameystiraan hawshii loo igmaday aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh